19 sano ka qaatay ninkaas sida loo qaban waayo. Nacam 19 sano. asxaabta maanta sheekadeen waxa weeyaan nin la yiraahdo John List oo Mareykanka wuxuu Mareykanka ku noolaa waqti hore ku noolaa. ninka John List waxa la yiraahdaa waa ninka waali heerku ka gaaray reerkiisa ayuu u dilay waayo wuxuu aaminsan inuu jannada ku arki doono. la socda ningu yalla dhashay ma dhilba saddex urugeli ma dhilba daymanka ku socdo ma dhilba dhashay badal ilaahi wali ma weligaaba joogtay macmiil baa tahay xadjidii tahayna magacayga waa Hira baa la dhahaa magacayga dadka waxaan baraa luqadaha aad rabtida tiibsiyaal sida luqada aad u baran lahayd sida oodo fudud ka badan iyo waliba sheekayaal cajiib oo mysterious oo ku turjumay luqadeena hooyo ee af Soomaaliga. Let's go subscribe ka qaad iyo let's go maada sheeka cajiib aan yahay. saaxiibkan John List wuxuu ahaa wax kastaba perfect in noloshiisa ku ahaa qof waa perfectionist ka la yiraahdo kala oran karaya markuu yaraa wuxuu ahaa wiil perfect uu weynaado u guursaday wuxuu noqday perfect husband ayuu noqday wuxuu dhalay caruur perfect father buu noqday shaqo ka shaqeyn jiray bank muxaasib ka shaqeyn jiray gurigiisuna wuxuu ahaa guri mansion la yiraahdo weyn ayuu 19 maqsina ayuu ahaa saddex caruur buu lahaa islaanta hooyadii islaantu qabo yaa la gali jiray marka reerkan waxay hayeen nacam American dream oo kale wuxuu ahaa dream hawaawi ay mid kastaba doonay waqtiga inuu gaaro ilaa imika uu doonay inuu gaaro saddexdii saac iskoolka si fiican ku dhigay iskool cajiib muxtarama islaantiisu dad wada muxtarama mujtamaca ku dhaxayeen dad waxay hayeen waaxad kastaba kaniisadoodii iska tagay nacam dad diintoodana iska haysta lacagna iska haysta dad waxay hayeen iska happy noloshooda happy life maxaa rogi doona ilaa saaxiibkeen John waxa ku dhacay 1991 waxa ku dhacay inuu saaxiibkeen shaqadii laga soo oray shaqadu aqalka 19 ku bilinay ubadka islaanta iyo hooyadii laga soo oray saaxiibkan isagoo adaad soo whatever wuxuu 46 jir saaxiibkan dhulka la wareegay shaqayaal yar oo kala qaatay laakiin nin guri inta la shaqayaal yar oo qof seen oo kala caadiyadii ma ka filayso markaasaad maxaa laga yiri waxa ka baxda gurigan weyn oo ka baxo adu waxa ku noolaataa dawladdu meel ku siisaa soo kale uu diiday wayna kan wuxuu ahaa nin qof sharaftiisu ana cirka la taagan tahay sidoo waalidkiisuna ku soo barbaariye aabihii nin ay shaqaysan shaamac buu naftaada keen self sufficiency la dhahaa ku soo barbaariye wixii horna ayuu diiday markaas saaxiibkeen sidoo bahadlaada saaga ilaaliyo wuxuu subax kasta wuxuu bixi jiray waqtigii shaqadiisa ayuu bixi jiray wuxuu fadhiisan jiray meesha laga raaxo train station ayuu fadhiisan jiray wuxuu iska akhrisan jiray journal ayuu khasar newspaper ayuu iska akhrisan jiray wuxuuna soo noqon jiray waqtigiisa shaqada reerkiisu warba kama yahayn sidoo reerka daba bilan wuxuu sameyn jiray hooyadiisa bankiisa hooyadii waxaan ku hadlay banka hooyadii iyo kalba lacag hoosaan uga soo raqaajay sidoo xaafada guriga uu biiliyo saaxiibkan John maalin isla sanadkan adu ko iyo 70 weyn buu goostay qaraar wuxuu soo galay guriga islaantiisii wuxuu garanay waqtiga caruurtiisa waxa ku maqnaan iskoolkaasna waqtiga shaqada ku maqnaan la caadiyantan jeclaa uu soo galay islaantiisii madbaxi weynaayay shaax iska dhaxay basoo iska faraxsan islaan lacag leey maxaa ka maqnaan ma sha Allah markii ayuu soo galay baaskooda ayuu dhakada kaga saaray dug hisha madax ka saaray markii dambana wuxuu tagay muxuu ahaa floor saddexaad betaashka saddexaad ee guriga waa guri inteleg oo ninka sheegay waxa gashay hooyadii islaan yar waxay 8 da'weyn hooyadii markii dambana madaxa baaskool ka saareysna uu soo dhaadhacay wuxuu iska fariistay meesha wuxuu sugay ilaantay manayaan labadiisa caruur ayuu sugay inay imanayaan ta u weyn caruurta iyo ta u yar waa isku waqti manasuus la socday waa laba gabdhaan jecel may waa wiil gabadh marka ayuu sugay markay sa uga soo wada galeen albaabka intuu xagga dambe ma ka istaagay labadooduba dhabarka soo saaray madax dhac labadooduna markii dambe suu maskaxda ku keenay ma garanayo astaghfirullah wala xog gaaray wuxuu afar qof baan dilay afarta qof aan noloshooda u jeceliyaan dilay maxaa sameeyay sandwich ma sameysana sandwich macaan sandwich uu sameeyay ilaahayna wala xog gaaray alxamdu rabbil alamin ilaahu ya rab wuxuu tagay madbaxu iska tagay wuxuu iska soo sameystay sandwich waxba kama qasna waxba kama maqnaba inaan kan reer buu dilo waxba waxa kama galinba sandwich soo sameystay iska dhargay iska cunay bub aadi ayuu doono ka haray maxaa nigeer saddex ciyaal buu leeyahay laba dilay tii wanaag tiyareed kii dhaxda hara ku yaroo 15 jirooda caruurta yarda xilliga oo yar
iska yar baa luqada noloshiisu xilligaa u faxaysan dad garanaysan inta waxay ka dhigan tahay wuxuu tagay iskuulka weliba uu ku tagay wuxuu daawaday isagoo ciyaaraya football match nacam subxaan allah niyaduu hayay kubadiiba ku daawaday markuu ka yaraa kubadiisii uu dhammaystay uu ka yara dhameeyey guriga kale aabbo anaa kusoo doonay maasha allah si fiican baa u ciyaartay ayaaba ka yaraa faraxsanay mabsuudo uu soo kaxeeyo guriguu keenay ka yaraa odag maxaa gaari watay doodada waxaa dalacgleyma he gave him a ride guriguu yimiday markuu albaabkii xiray guriga ka yaraa saa horbaxay inbuu ka yaraana aabbo soo jeestoon ka yaraa shafka dhexdiisa mufash ka saaray ka yaraa markii dambe saaxiibkeen intaan kumuu joogsan markuu wada dilay 5 qof hooyadii islaantiisa 3 caruur 5 qof markuu wada dilay uu sandwichkana iska dhameystay markuu dirigsan dadkiina mission impossible dan uu dhamay messagekii dadkii wuxuu sameeyay markaa garbage bag babacaan ku dhexridno daafadee madayuu mid kastaba intuu ku duuduubay uu is ag dhigay saas ku ag tax meeshaan leen xafad maxaa leedahay bowling roomka meesha de wax ku ciyaaraan stuff like that ma garanay bowling roomka guriga iyo isdaba dhigay markii wuxuu sameeyay dawdaga sheekhoogay muxuu kaniisada ma garanay sheekh shaydaanka whatever yu u qoray note buu qoray wuxuu qoray message letter la waagaada facebook waxaan telefoonay waxaan la isticmaali jirino waxaad la isku waxin jiray muxuu message ma garanay note letter markii uu qoray wuxuu ka yiri haylay sheekho waxba haylay hada wax iga maqashid waxba haylay yaabin anu waxaan nacam goosta qaraar waan waayay adduunkii baad igu soo madoobaaday maxay aniguna ani ilaahay ila amilay waan tashaday wuxuu ilaahay tusay inay taasi tahay xalka kaliya hadii aan reerkayga hadhow toole aan jannada aan ku arki doono markaan wuxuu waxaan sida u sameeyay buu nacam waay ma doonay inaan dadku la xukmiyo la raado ninka waa nin waalan dadku ay caayaan oo bahadilaada mujtamaciisa waa nin mujtamac heer sare ku dhexlo waxaa soo dhan reerkayga nacam waan ka ilaaliyay stuff like that oo kale hay markii dambe uu socday wuxuu sameeyay ninkan maskaxaan ninkan نعم مسكحة أو والله حدا لكن مسكح ولا مجلس خفرو جرينس دتك والله كل بحكم ولا ندم عادي هندي صلى الله عليه وسلم مركا أحو سميي أحو الله هذا هرت سكول كسد حدا عروض بالله هذا أحو كيري وحن يرمي قنانا تضباضه وحن هنتجنا ضد family oo kale adu yaanu yartagana marka caruurtii fasax way iskool ku soo qaatay maxay toddobaado weyn sidoo baxsado marka wuxuu sameeyay ninkan wuxuu qaaday sawir wixii ka yaala gurigoo dhanba la waaga telefoon la isku taswiray ma jirin waxa dadku ay ka garanayaan boo sawirada guriga ku yaala bas sawir kastaba ma qasbu qaaday uu iska googooy iyagu isku reebay uu iska googooyay marka wuxuu sameeyay trigadii aqalkoodan ayuu wada shiday intuu bixin dadkuna dawlka hor dadka zaina daawatay filmaanta ma garanaya hore dadka caanaha wax kasta waa loo horkeenin jiray guriga caanaha ninkii buu la hadlay kii caana leeyda ninka caanaha leh caana la whatever ninka ayuu la hadlay marka ninka ayuu keenay waxba aan keenin خلاص cancel da sidoo iskoolka keedib waxa yar ziyaarana dad marka iska nasaaday waxba aan keenin markii trigo wada shiday guriga intuu ka bixin wuxuu nashaday raadiyooga muxuu ahaa channel ay ka socdaan labooga heesooga diinta sidana ku qasaacid oo kale nashiid diini oo kale ayuu shido ninkii guriga ka baxay hurdadii markii horta intuu bixin de iska seexday meedkii iska ag seexday la habeen ma baxay laga shakin subaxii dambe ayuu baxay wax kaste ninkii iska socday ma garan sax tookana ala Allah ninkii iska socday ma garatay laakiin dadkii jaarkiiba ka yaabo arkay iftiinadu subaxna way shidan yihiin habeenkana shidan yihiin bilo ka qaata jaarka si u shakiyaan bacda bilo oo three kastaba guriga gubtay bal imisa waqtiga qada kasta ka waran three kasto 19 maqsin guri inta lag oo three kasta markuu kulba xabad buu gubanay jaarku leen qara kana ka dhamaatay markii dambe jaar ina la hadin ma garanaysaa ku soo dhaxgal afeeraha markaas oo kale tahay wax yar cajiib ma garatay marka dayn kasto imka waxba jaarku waxba dimay baadino meed bayhiinba laakiin marka jaarku waxa laadna iska taxay yaraadeen we suspect something ad wax baan ka hershakin guriga oo wax sii baxayna ma jiro dadkii galayna xaaskii badnaa xaas lix qof ay hayeen sii baxay soo baxay midna ka maalkana eeg askartii hay'adee tiri askartii waxay dhaagar garaacan saacaday bar waa laga furi waa askartii daaqaday ka eegeen maxay arkeen waa bashan baco isku dhex jiraan deemay garana ku daafad moodi lahayn bacmada ku daafad laakiin dadkii macaaba lagu hoogo dibadda saar haddaad photo ka aragtid Google ka waad ka arkaysid laakiin waxa xaga ma nacayna soo dhiga ma fiicno
subxaan allah lugyoodna soo saar markii askartii baa jabiyey meesha waxay dawey tiriyeen qalkii way garteen yaa galay qarka ninkan kaasa ayaa galay John Lead baa galay ayaa ka maqan guriga isagaa maqnaa ninkii waa la doodoonay ninkii ma garanaysaa waxaa la helay gaarigii kiira kusoo kaxeeyay isagoo wadanaya sax gaarigiisa caadiga family car oo kala day yaa laga helay airport la yiraahdo John F Kennedy Airport ku dhex yaala New York ku dhex yaala yaa laga dhex helay laakiin ninkan xariifkeena maskax buu ninkan iska dhigay gaarigii iyo xagga u dhex dhasay airport wax u dhoofay diyaarada wadano uga doonaan ninkana gaari xagga u dhigay bas buu raacay markii wuxuu qaaday train mareenkaba kama bixin wuxuu tagay state kale oo la yiraahdo I guess inuu haa South Dakota ama North Dakota I don't know yuu ka baxay ninka sheekadiisa ninkii saaxiibkeen uu iska socday noloshiisa iska watay magaalo kale ayuu iska galay magaciisa isla markiiba iska bedelo Samba maleen magac kale isku saaray magaciisa iska bedel ninkii wuxuu dib shaqo ayuu helay bariga shaqadu iska jirtaa maleen shaqo ayuu shaqadiisa kale maxaasib ayuu meel ka shaqeynayay wuxuu iman jiray dadka wuxuu ahaa ka dhex shaqeeya kaniisada waxaas yar noqday gabar baad xaga iska barteen iska jeclaadeen gabadhii miskiinteedu war umeehan wixii noloshiisa ku dhacay tiiba isku sideen tiiba noloshiisa isla qaybsadeen ilaa waqti galin ninkii saaxiibka noloshiisa iska watay si normal waxba kama qasneen keeskiina waa la xiray oo waxa la yiri khalas ninkii waa la waayay marka case close lama yiraahdo cold case bay raada case nacam wali la xirin oo hadna laakiin de wax la waayo kala dadka marka ninka bacda 18 sano saaxiibkeen subhanallah sallallahu alayhi ninkan markaa maqashin wax bilaa macni weeyaan waxa jira barnaamij mareenka la yiraahdo inuu socday laamika wallahi ma maleen karo waxa la yiraahdaa America's Most Wanted baa America most waxa ka dhigan tahay dadka Mareykanka ee Mareykanka u raadinayo nacam dadku Mareykanka aad ka raadinayo kale ma garatay oo waxa la soo saaraa caseski wali la xalin ee la garin qofkii sheekada ka dambeeyo kale yaa la soo dhigaa wuxuu ahaa marka keeskii waxa la soo dhigay maalin kale maxaa barnaamijka Pizza waxa soo dhigay keeskii ninka ee dilay ficil maxaan ka heli 18 sano maaha dadkii askartiina waxba ma hayaan marka askartu maxay sameeyeen la waaga waqti dan waxay 18 sano ka soo sogaysa sheekada ninka de adduunku horumar cilmiga horumar nin la yiraahdo magaciisa Frank Bender baa Frank Bender ninka waxa weyn dadka sanabada sameeyay naxtiga oo kale sida dawaaga dadku sanabada markay caabudi jireen sibirka dalaad sameeyo waxa soo kala sameeyay marka adooyinka saano ku eeg ninka qaraac uu ka siinaya happy life guriga dhex dhigan maqsankaaga cajiib marka ninkii yaa loo yar waxa la tusay sawir waagid laga hayay askarta magaalada warqadaha magaalada soo kale stuff like that yaa la tusay ninkii ba sawirkii ayuu si baaliyo ka sameeyay naxtigii wuxuuna maskax ninkan wuxuu ahaa very genius maskax aad ilaahay u sii ma sha Allah wuxuu maskaxda galiyay 18 sano yar gaboobay sabab noqdo muraayad buu xiran doonaa waayo ninkan waxa soo lahaa kale wuxuu galiyay muxuu ahaa muraayad buu galiyay ninkan wadaagi doontiin wuxuu u galiyay muraayad buu galiyay wax kasta ninkii sidii uu stiilku dharka uu xiran jiray markii hore uu dhisaan buu xiran doonaa sidii isku xasuusin noloshiisa sida waagii heed markuu faraxsanaa ninkan sidii buu sameeyay taf baa ka fotogan soo dhigay tabtiisiin bay noqotay ninkan tag barnaamijkii hay dadkii ninkii wixii uu sameeyay laabe oo naade barnaamijka waqtigiisa haymitay bishii saddexaad waxay 89 ninkii de wixii baa la soo galay sawirkii ee keeskiisa dadka shacabkii loo bandhigay TV-na waqtiga ay jireen waa loo soo bandhigay shacabkii waxa daawaday over dad ka badan 20 milyan aduu hadda exactly noqdo 22 qof oo milyan ayaa daawaday waagan inta dad badan mareenka soo dadka badan ma hayni 22 milyan qof ayaa daawaday dad badan baa soo hadlay xagga baan ka aragnay lacag qaataan maxay bilaa macniya laakiin naag yaa ka aragtay magaalada la yiraahdo Richmond iyadoo socota dariiqa ay ka aragtay maxamed TV-yaasha dariiqa ninkaas ka tala soo hadashay ninka waxa ka tiri jaarkayga wada jaarkayga ayuu eeyahay imika magaciisa ku soo Robert Clark ayuu isku saaray Robert ayuu eeyahay jaarkayga bal u yartago ninka bal naga soo hubsada waa jaarka way cabsatay maskiinadii ma garatay waa loo tagay ninkii waxa isagu muujiyo guriga waxa joogtay islaantiisa xaaskiisa de waa miskiin waxba adduunka war weyn bani ku sheego waxa iska guursadeen meel maxaa kaniisada iska dhaxalkeen iska dhaxjalaadeen iska guursadeen tiiba loo tagay waa la weydiiyay haad wadayga isku eegin beter waxda siin laakiin magacaad ku sheegaysiin ma odagayga Robert baa la dhahaa magacna sheegaysiin aad ma garaso daacad hay ninkii baa la sugay ninkii way miday askarta xidhan ninkii waa isagoo duqa laakiin waagu shaqada waayu waxa ya 18 sano ka bacdina xisaabta sameeyay ayaan macallin xisaabiminay ma galatay xisaabta waana
ninkii xilligii waa la xidhay askartii ninkii wuxuu sheekadiisii ku adkaaday anuu ninkana sheegaysiin mayhi mana garanay magacaygu waa Robert Clark weyaan ninkana sheegaysiin sheekadu way naga qasnaantay bilaa la hayay ninkii bilo ayaa la hayay jeelka markii dambe ayuu ninkii sheekadiisii runtiisii ayuu qirtay uu sheekadan aniga waxba igama hayn anu sheekadan nin waxaan ahaa diiniyo diintiisa haysta sheekadan markaan ilaahay la hortagin amasana ka horna Cabdilaahi oo bandhig sheekada laga suulay halka ku siima waxaan gartay anu fahmigeygu inay bahadilmaan ma doonin caruurta iskula cajiibay dhiganeen inay iskoola qolo ma doonin publica inay islaanteedu guriga ay gashay yar ma doonin islaan waxay ahayd mujtamaca kule hooyadii inay dhibaato aragtay nolosheeda ma doonin ninkii intaa muka sheegay markaa waxaan doonay inaan reerkayga ku dhibaato arkin aan adduunkan xunaa dhibaatada badan leh dadkan xunaa dadka cayda badan leh bilaa macniga aan ka kaxeeyo ay jannada iga soo hortagaan ana waagay wadku idilo aan ka daba tagoonta xagga isku aragno diib xagga isku maxaad wadana sheekadeeni si wuxuu wax dhiceen dadka baasko lagu jirin jannada iskaarkana waan iska soo wadana sheekada insha Allah فهمنا تنينكي بقادقي بانينكن بان كله ياب أيو قاتل نينك حدا كسي نينكا شيكدي سوى حلو حكم حكمي انتلك بالسي وكميديا حكمي جا وكسو بحن جاي خلاص حكم حد أبدي يالسي وكان وحوها وقتي نينكا وحوها حكمي جا الدوك وكوي ساقاشا حدا وحال حكمي وحوها حكمي جا ودير قف إنسان نول ولي اللي ألسي جون ليست صحيح كان روبرت كلارك هنقدر نكون نقدر روبرت جون waxaa la galiyay New Jersey prison baa la galiyay marka jeelka ku dhex jira xaga waxa la kii xukmi waxa la siiyay shaab abadi kama soo baxayn baninka 2002 yaa la yeeshay interview isagoo jeelka ku dhex jira waxa la geeyay maxaad isku dili weyday ilaa aad dhibaatada in iska ilaalisin bay heedo fikradda maxay isaga saad reerkaaga duguna aysan dhibaatada badlaad ma xuraan waxa isku dili waayay waayo hadan isdilo reerkayga jannada kaagama daba tagi lahayn sheekaysa waliis niga saaxiibka ha noqoto 2008 isagoo deesamso 28 jira ayuu jeelka New Jersey ku dhex dhintay sheekadiisna saabay ku kooban tahay laakiin maanta waxa lagu leeyahay ilaa imika magaaladii uu galayay ilaa imika sheekadiisa waxa looga sheekeeyay carruurta sida uu yahay nacam sida marka butido kala dhagdheer dhimato dhulkiina baday John List لا إمك جوريجيس نحو جبت بعد قل مك حاسك دليل وجبت جوريجيسي وبابا لكن مجالات ربنا لا إمك عبسي أن أركي كرني وكلي شيء كذي سنة لا إمك وحوين كيسس كدونك وامك وكان سحبت شيء كذي ما تواتك حتى جعشنا لقطة كلبرتي شيء ياسنا كلهم ميستريان صوماليا كنتو جم سوا فهمتين سبسكرايب كقاعدة بالك قاع كسر سعدو أركتي وحكسر مكان صادقه هالضباط كنا وحصادقة 2 videos guys إن شاء الله